Assalaamu calaykum. Maalin walba waxaad u socotaa gaaridda yoolkaaga ama hadafkaaga. Maalin walba waxaad dareentaa daal si aad u gaadho hamigaaga. Boor ayaa ku soo gaara. Sidoo kale dhidid ayaa kaaga yimaada sidii aad mar u arki lahayd shakhsiyadaada oo horumartay. Balse haddii aan ku imaado oo aan ku weydiiyo su'aal ah kuma tahay, ma iga jawaabaysaa? Mase ii tilmaami kartaa qofka aad tahay? Markaan sidaas leeyahay, kaama doonayo magacaaga, qabiilkaaga iyo wixii la mid ah. Waa hubaal oo badankeenu ma ogin shakhsiyadeena. Waxaanu ku wareegnaa xayndaabka lahaanshaheena mid ila fahan. Qofku wuxuu ka kooban yahay waa labo. Waa lahaansho iyo ahaansho. Lahaanshuhu waa waxaad leedahay sida hantidaada ama dharkaaga. Balse ahaanshuhu waa shakhsiyadaada dhabta ah. Yacni sidaad adduunka ku timid awalkii. Inaad garataa arrinkaasna waa tiir weyn oo ka caawinaya inaad mustaqbalka guul ka gaadho. Haddaba inta soo qaadato warqad ama buug, waxaad noqotaa inta aad ka ogtahay naftaada. Kadib waxaad si cad u fahmaysaa waxay tahay inaad qabato mustaqbalka dhow. Adiguse hadda isdheh kumaan ahay. Who am I?